saxo maqal saafiyo asalug lahayn somtel ugu hagaag telefoon saxo maqal saafiyo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبض داود ملك استاذ جوجتان رمضان كريم كنا سو دواada mar kale iyo barnaamijka Kismaal oo hadaan oo kale aad kala socotaan telefishinada kala duwan iyo baraha bulshada intaba barnaamijka Kismaal waxaan ku casuunaa diyuga 24 saacadood ugu dambeeyay telefoonadooda gacanta shirkadda isgaarsiinta Samta lacagta ku shubtay saalkan ay u yimaadaan kuna tartamaan 22 su'aalood oo markaas 3 milyan oo shilinka Soomaaliland Ramadan Kariim kuna soo dhawaada barnaamijka Kismaal kulanti wanaagsan daawadayaal mar kale waxaan u yeeri doonaa tartamaha koowaad ee barnaamijka qayb galaya tartamaha koowaad ee barnaamijka qayb galaya waxa Sakariye Muxyidiin Sheekh Ismaaciil Allah saabiyo Sakariye السلام عليكم سكرية محيدين شيخ إسماعيل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سكرية حضر بحين السلام عليكم تاعك عاد دقنت أنا قدام شوية حضر بحين نسيك بسم الله الرحمن الرحيم أرطاني وأرضي بي هي waxaan dhigtaa dugsiga sare Nuuridiin Secondary School gaar ahaan fasalada form 4 ka insha Allah bixi doona waxaan deganahay xaafadda boqoliyo ka tan ma sha Allah waxaad siin ardaydii sanadkan ka baxay dugsiyada Nuuridiin imtixaanaadkii kasoo fasaxiyo coronavirus iyo jira sida waxbarashadii kan idin wadiga waxbarashada aad buu socotaa mar walba baahiyaadka bini'aadamku ay gabaabsi galaan waxaa laga yaabaa in wado kale oo loogu soo wareegay ay jiri karto sida wada ogsoontiin waxaan ku dhiganaa waxbarashada online baan ku dhiganaa gaar ahaan dugsiyada Nuuridiin ayaa waxaan oran karaa waxa weeyaan dugsiyadii ugu hor bilaabay online-ka markii la xidhay waxbarashada bishii 3aad 18 markii la xidhay isagu wuxuu bilaabay bishii 3aad 12 marka waxbarashada aad buu u socotaa online ku dhigata Sakariye inaad barnaamijkan hore u daawatay iyo kale aad waan la socday in badan barnaamijka waa daawatay barnaamijka sidoo kale muuqna macluumaadkiisa la horta aad buu fiican barnaamijku waxyaabo badan oo laga faa'iido ma jira macluumaad badan oo hore aan garanayn haday noqoto dhaqan iyo haday noqoto suugaan iyo haday noqoto waxyaabo badan ayaan ka faa'iido way Sakariye waxaad xasuunataa laba jeer oo kamid ah labaynu ka tuuri doonaa su'aalaha saadkaadaan labana cid aan la hadlaadii inagu adkaadaan midna oo kale bismillaah waan ku bilaabi doonaa muraayada koorta leeg su'aasha koobaad waxay noqonaysaa qofka waxa uu bireeyo aanu islaamku cunin waa qofka waxa uu bireeyo aanu islaamku cunin waa ba kristaanka ta muuminka ja mulxidka ha midna bismillaahir rahmaanir rahiim jawaabta su'aashaas waa jaadu mulxidka ja oo mulxidka inaan laba ka tuurnayo galafseemas abada wata qofka waxa uu bireeyo aanu islaamku cunin waa ja oo mulxidka jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay Sakariye su'aasha labaad waxay noqonaysaa gabadha la furay bilaha cadad baxeedu waa gabadha la furay bilaha cadad baxeedu waa ba 2 bilood ta 1 bil ja 4 bilood ha 3 bilood بسم الله الرحمن الرحيم جوابت سؤال سوا جاء 4 بلوضه جاء 4 بلوضه gabadha la furay bilaha cadad baxeedu waa ja 4 bilood inaan laba ka tuuranaa gabadha marka la furo kala taga dida tirsanaysa ha حاويا عدد ترسانيسا الله يقطر laba ka mid ayaynu su'aalahaasi ka toori doonaa afrooyna daayo waxa soo saaray ta oo hal bila iyo ja ha oo 3 bilood ha oo 3 bilood gabadha la furay bilaha cadad baxeedu waa ha 3 bilood jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay isku dhawaan saddexan soo gaarnay su'aasha saddexaad waxa ka odhanaysaa dagaalkii nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatay dhaawac ka soo gaaray waa dagaalkii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ku dhaawacmay waa ba qaswatu hunayn ta uhud ja badr ha khandaq bismillahir rahmaanir rahiim jawaabtu waxa weeye waa ta'du uhida ta uhud
inaan laba ka tuurno weli naasad qisada waa hubtaa dagaalkii nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa ahaatee dhaawacu ka soo gaadhay waxa uu ahaa ta dagaalkii uxud jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay afar baa soo gaadhnay sakariye muxiidiin su-aasha afraad waxay noqonaysaa ninkii yidhi cadka rag isku raaco keena waxa uu ahaa ninkii yidhi cadka rag isku raaco keena waxa uu ahaa ba xirsi ammaan ta wiilwaal ja sayid maxamed xa aadan galaydh بسم الله الرحمن الرحيم جوابت وحوي وطعد ويلواله ta oo wiilwaal inaan laba ka tuurno weli naarsi اساسا كنت sheekada waxaad ka haysaa maxay ahayd marka aduu sheekadu way yara dheereeyay laakiin saama si xasuustay laakiin wiilwaal buu ahaa wiilwaal buu ahaa ninkii yidhi cadka rag isku raaco keena waxa uu ahaa ta oo wiilwaala jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay shan baan soo gaadhnay sakariya su-aasha shanaad waxay noqonaysaa guutada ciidanka ahi waxa ururada ay ka kooban tahay yihiin guutada ciidanka ahi waxa ururada ay ka kooban yihiin noqonayaan ba laba urur ta afar urur ja shan urur xa saddex urur guutada ciidankaas oo guutada ciidanka inta urur ay ka koobanta arrimi ciidamada in la gashay soo jawaabta su-aasha haddaan isku dayo waa ja oo shana ja oo shana shan guuto halkii guuto waxay ka kooban yihiin shan urura markaasi inaan laba ka tuurno hal mar baa inoo sanasaba dan waa askariga adeeri cid garan inaynu weydiino iyaduna waa inoo bannaanta bal laba iga tuur waayey dan qof ciidankaa garan inoo garaacnay iyana waa fursadayna haysan laba ka mida magaa ka tuurno laba ka mida ayaynu su-aalahaasi ka tuuri doonaa shawayna dayse guutada ciidanka ahi waxa ururada ay ka kooban yihiin noqonayaa ta afar baa isku soo hadhay iyo xa oo ah saddex bismillahi raxmaan haddaan isku dayo waa afar weeyaan oo ta oo afara guutada ciidanka ahi ururada ay ka kooban yihiin waa ta afar go-aankaaga u dambeeya guutada ciidanka الحق كويس صدحة إن شاء الله تعالى حق أو صدح guutada ciidanka ahi ururada ay ka kooban yihiin waa xa saddex waad kasasa xa oo saddex ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay lix baan soo gaadhnay su-aasha lixaad waxayna odhanaysaa silsiladii ay isugu halcelinayeen hadraawi iyo cabdiqays waxa ay ahayd silsiladii ay isugu halcelinayeen hadraawi iyo cabdiqays waxa ay ahayd ba siinley ta siinley ja deeley xa miinley بسم الله الرحمن الرحيم جوابت هذا نسكت ديوا تاء سينليا تاء سينليا silsiladii ay isugu halcelinayeen hadraawi iyo cabdiqays waxay ahayd ta siinley laba ka tunaa naga dhamaadeen qof si weydiin karna soo dabta silsiladii ay isugu halcelinayeen hadraawi iyo cabdiqays waxay ahayd siinley jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay toddobaan soo gaadhin waan soo dheerayna maansada silsiladda xaydhu waxa ay ka curatay degaanka maansada silsiladda xaydhu waxay ka curatay degaanka ba bowrama ta burco ja laascaanood xa hargeysa silsiladda xaydha iskuuladana waa lagu dhigan jiraa filaya guba iyo xaydha iyo بسم الله الرحمن الرحيم تاء برعة ta oo burca maansada silsiladda xaydhu waxa ay ka curatay degaanka ta burco koodkasaas ta oo burca ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay sideed baan soo gaadhnay sakariya meel xasaasi weynay dhirta aan midhahooda la cunin waxaa ka mida dhirta aan midhahooda la cunin waxaa ka mida ba xodayga ta kariirta ja boocda xa intaba dhirta aan midhahooda la cunin
ويان بعض كل شيء بعضه ja oo boocda dhirta aan midhahooda la cunin waxaa ka mid a ja boocda ja oo boocda ayaynu wada eegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay waana saxo boocda lama cuno hodaygana lama cuno kariirtana lama cuno laakiin sax bay ahayd laakiin intaba ku saxayd aad baa mahadsan tahay meel wanaagsan baan soo gaarin kulanti wanaagsan daawadayaal mar kale weli barnaamijka Kismaal ayaynu ku guda jirnaa waxaanu yeeli doonaa tartamaha labaad ee barnaamijku waa Mubaarak Xasan Cabdilaahi Mubaarak Allah saabiyo Assalamu alaykum Mubaarak Xasan Cabdilaahi wa alaykum asalaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh ku soo dhawo barnaamijka Kismaal waan ku dhawahay Mubaarak waxa tafaasiiliga seen arday tahay halka deegaanka aniga dawladashin tarbixin nasiib karto waxaan deeganahay magaalada Hargeysa gaar ahaan degmada Axmed Dhagax waxaan ahay arday dhigta dugsiga sare Al-Bahrain Schools waxaan ahay ardayda soo wajahday xaaladdan bad xirantaa ee coronavirus ninka imka qaab online akhriigata ma sha Allah Mubaarak barnaamijkan hore u daawateen kale barnaamijkan ruuxantii aad waan u daawaday wuxuu ku jiraa barnaamijyada ugu xiisaha badan ee telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka baxa haddii aan in yar ka hadlo community ka kooban barnaamijku waxa weeyaan 3 qaybood ka kooban yahay waa dhaqan diin iyo maadi inta uu isku jiraan marka qofkii daawada bisha Ramadaan waxaan oran karaa cilmi aad u badan ay ku faa'iideeyaan in far badan barnaamijka daawanaysa inta ka soo qayb gashan oo jecel maanta adiga lagu daawanaya Mubaarak Xasan waxaad la xusnaataa laba kamid ah su'aalaha hadii nagu adkaado waan ka tuuri doonaa labana qof baan la hadlaadii aan lacag u baahano bismillaah waan ku bilaabaya muraayada koorta leeg su'aasha koobaad waxayna oranaysaa qarjac muudluhu waa ba raashinka dhanaan ta raashinka aan bislaan ja raashinka macaan ha midna qarjac muudle Mubaarak qarjac muudlo romaan maqalsa marka xasan laba kale ka doodna laba kamida ayaan jawaabaha su'aalahaasi ka saari doonaa waxa soo saaray qarjac muudluhu waa ta raashinka aan bislaan iyo ja oo ah raashinka macaan ja oo raashinka macaan ma qarjac muudla marka cunsid macay qarjac muudla qarjac muudla ta waxa soo saaray raashinka aan bislaana iyo ja oo ah raashinka macaan ja oo raashinka macaan Mubaarak go'aankaaga u dambeeya qarjac muudluhu waa waxa soo saaray ta oo ah raashinka aan bislaan iyo ja oo ah raashinka macaan marka la calaalinayo qarjac yiraahdo adeeg ba ku jira soo waa raashinka aan bislaan ta oo ah raashinka aan bislaan qarjac muudluhu waa ta raashinka aan bislaan jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su'aasha labaad waxayna oranaysaa heshiiskii Xudaybiya sanadkii hijriyada ee uu dhacay waa heshiiskii Xudaybiya sanadkii hijriyada ee uu dhacay waa ba 9kii hijriyada ta 7dii hijriyada ja 8dii hijriyada ha 6dii hijriyada bismillaah jawaabta su'aashadan soo dhawo waxa weeyaan ba 9kii hijriyada ba 9kii hijriyada heshiiskii Xudaybiya sanadkii hijriyada ee uu dhacay waxay ahayd ba 9kii hijriyada inaan laba ka tuurno mar labaad iyo inaan qof la hadalo inta wayno banaanta laba kamida ayaan su'aalahaasi ka tuuri doonaa 9kii wayna daay waxa soo saaray ta 7dii hijriyada iyo ha oo ah 6dii hijrada ta 7dii hijriyada heshiiska Xudaybiya sanadkii hijriyada ee uu dhacay waxay ahayd ta 7dii hijriyada go'aankaaga u dambeeya Mubaarak waxa soo saaray ta oo 7dii hijriyada iyo ha oo 6dii hijriyada heshiiskii Xudaybiya sanadkii hijriyada ee uu dhacay waxay ahayd 7 oo ta iyo
حق اللي حاسك سهل حقها لحظة هجرية حق أهل الهجرية هشيسكي حديبية سنة كي هجرية أو دعوة هيد حق لحدي هجرية جوابت السؤال شنا سدا سايي صح كتاي وارد صدحنا سوقان صلاة آد جمع لتكتا وحا أي كفضل بدن تاي صلاة آد كليغا تكتو درجوين دان صلاة آد جمع لتكتا وحا أي كفضل بدن تاي صلاة آد كليغا تكتي درجوين دان با لحية لباتن درجو تا سيديد يلباتن درجو جا شن يلباتن درجو حق تضبط يلباتن درجو بسم الله الرحمن الرحيم جابت السؤال شاتان سكو دايوا حقها تضبيلات درجو حق تضبط يلباتن درجو يعني لما كتورنا نقدر ما نسمع صلاة آد جمع لتكتا وحا أي كفض لبدن تاي صلاة آد كليغا تكتا درجوين دان تضبط يلباتن درجو جوابت السؤال شنا سدا سايي صح كتاب مبارك سؤال أفر بان سوغن سؤال أفراد وحين ورنسا مركي مكلا فرتي أصحابي النبي قلنا حريص ينبت قليا بكركي ساعة فرحة كبعادة وديبي وحوها مركي مكلا فرتي أصحابي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرحة كبعادة وديبي وحوها با أبو جهل تا عباس تا عثمان بن الضلحة حا أبو سفيان بسم الله الرحمن الرحيم جابت السؤال شاتان سكو دايوا حوين تاوى عباس تأوى عباس إذا لما كنتوا نقدر هذا قف نسوي ديننا فرصة بين الله إنه الله هذا الله كسيه بيننا تأوى عباس مركي ما كلا فرتي أصحابي النبي قلنا حريص النبي تقول لي بكر كيسات فرحة كبعادة ودي بيوحى وها تا عباس قوان كقدم بيه وين وقت يقول إنه سعودة أي نقرأ مع الوا ماري برنامج كرسمال بنكو جراه مركان مع السؤال شو حاولنا سمركي مكلف فرتي مركي مكلف فرتي markii ma kala furtay saaxiibkii nabigu furaha u dhiibay waxa uu ahaa asxaabigii nabigu furaha u dhiibay asxaabigii markii ma kala furtay nabigu furaha u dhiibay wuxuu ahaa Abu Jahl Abbas Ismaan ibn Dalha Abu Sufyan Abbas Abu Jahl hay يلا معلك حكوا يعني اسمان بن ضلحة اسمان بن ضلحة مركي ما كلا فرتي أصحابي النبي يقولنا حريص النبي تقول لي بكو كساتة فراها كبعادة ودي بوحوها معنا كان الله هذا الله معنا كنا نقول وشاء عثمان ابن ضلحة أقول عنا شاء عثمان ابن ضلحة وذيك دونا جوابت السؤال شنو سلا ساي صح كتاي وما سي معنا كم أنا معك عبد الله ما سي أدب وسلام الله شما سوقنا السؤال شناد وحين ورنسا كلن بيدو waxay ka mid tahay kulan bayadu waxay ka mid tahay ba ugaadha ta haada ja xayawaanka badda ha xamaaratada kulan baayo أنا مقام عملك يا رسول. رومان مقال. سلكي محمد إني وحوا حمارتها. حمارتها. كلن بايد وحي كم تهاي حمارتها. كيف بنسوي دي نمسون؟ أي. أو حمارتها. كلن بايد وحي كم تهاي حمارتها جوابت السؤال شاسين وذيك دونا جوابت السؤال شنا سدا سايي غلط قلت هاي تا وهذا أي كلمتين هذا اللي قصة عبيميات في عمل سوق
kulanti wanaagsan daawadeen wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka Kasmaal oo idinka imanay TV-yada kala duwan iyo raadiyo Hargeysa sidoo kale aad ka dhageysanaysaan iyo baraha bulshada waxaanu yeeli doonaa tartamaha saddexaad ee barnaamijku waa Xamse Maxamed Aadan Xamse allo saabi السلام عليكم حمزة محمد آدم وعليكم السلام كسو دو برنامج كسمال وكل واحد وحضر بحيني قصة هالك أدقنتين هذا تاني قد شنت معلومات السكر حدينا مجالة جيسة كارهان إذا عدا وحكم إذا أردت فور كهي سنة كبح هي السول كسندري بنودين سكدري سكول إن برنامج الروضة وتسين كلا حشة كل جنود برنامج كني بدل لسه برنامج كمان أنت هذا القدواني أنا سقيت هذا حسنا تاون ضبط شهرين إنه إن لبك توري دونه ضبط شهر دينو قاد كتنا قفان قراع دون بسم الله سؤال شكوباد وحين ورنسا dalka Mexico lacagta laga isticmaalaa waa ba peso ta dollar ja yan ha euro Mexico lacag leeyahay ma soo dirin sama بسم الله الرحمن الرحيم جاوبت السؤال هذا اسكو ba oo pesa dalka Mexico lacagta laga isticmaalaa waa marka dollar iyo euro iyo yang wasad garanas astacbada saad dalka Mexico lacagta laga isticmaalaa waa ba peso jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay laban soo gaarnay su'aasha labaad waxay noqonaysaa xayawaanka nabigu naxariisiyo nabadgelyo korkiisa aatee amray in la dilo waa xayawaanka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam amray in la dilo waa ba qoratada ta bisada ja ayga ha daayeerka بسم الله الرحمن الرحيم جاوبت السؤال هذا اسكو ba oo qoratada inaan laba ka tuurnaan wali wayna harsanta إن شاء الله بخير هذا وقت حيوانك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر إن الدلوة با قرطة جوابت سؤال شنو سدا سايي صح كتاي سؤال صدح عين سو قال سؤال صدحات وحين ونسا كتاب كسح المسلم كا وحا كلن أحاديث تردودو تاي كتاب كسح المسلم كا وحا كلن أحاديث تردودو أي تاي با صدح كن تا أفر كن شا شن كن ح لبا كن صحيح البخاري لبا كتورنيو نقف كتاب قاعد ويدينو لبا دوينو بنات لبا كميدا ايان جوابا سؤالات كتوري دونا وعسكو سهاري تا أفر كن وحديث يجوا شن كن وحديث بسم الله الرحمن الرحيم تاو أفر كن كتاب كسيح المسلم كوحا كلن أحاديث تردو دويدان تهاي تا أفر كن وحديث يجوا شن كن أسوساري إن شاء الله تعالى تادا كتاب كسيح المسلم كوحا كلن أحاديث تردو دويدان تهاي تا أفر كن وحديث كود كسيسا إن شاء الله تا أفر كنا كتاب كسيح المسلم كوحا كلن أحاديث تردو دو أي تهاي تا أفر كن وحديث جواب السؤال شاساين وذيك دونا جواب السؤال شو نسيدا سايي صح كتاي وعسو قارني أفر سؤال أفراد وحين ورنسا geed qaraabka aan roobka mooyee biyo kale ku bixin waa geed qaraabka aan roobka mooyee biyo kale ku bixin waa ba cambaha ta gacayrada ja muuska ha moqorka dirtan wad kala garanaysa labadaas aan taqaanay حمسة جوك قال وقتنا نوصل عندك خرقة تدويني ما أنت متشوقة والله مو بدلع تدويني كروني بالرعد
inaan qof laakiin la hadalnaa fursad inoo bannaana oo yaqaanaha qaar yaqaanay laba ka mid ka tuur laba ka mida ayaynu ka tuuri doonaa gacayriyada gacayrada oo ta'a iyo muuska oo jaa isu saaran gacayriyada ayaa gashan gacayrada weli maad arag maaraka muuskana walba isagoo laakiin soo baxay u badartaa muus geed qaraabka aan roobka mooye biyo kale ku bixini waa ta gacayrada jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay 5 baan soo gaarnay su-aasha shanaad waxay noqonaysaa xarafka istabraq macna ahaan waa xarafka istabraq macna ahaan waa ba dahabka ta xariirta ja dhulka xa wabiyada استبرق وحلو أساور من فضة قرآن كنا نقول شو استبرق حريرته حريرت لما كنت أنا قدام هذا سوا حرفك استبرق معناها وتا حريرته جوابت السؤال شنا سدا سايي صح كتاين لحما سو قالني حمسه سو دارنا السؤال اللي حادو حين نسميه الحساسيه عيدن كي ميسك سراكيشه كلا بخا عبد الله عسكر وحا هوغاميني عيدن كي ميسك سراكيشه كلا بخاي عبد الله عسكر وحا هوغاميني با هرغوافي تا دغوينه جا ابراهيم كودبور ح لحله بالصلاة دي أورتا ما يستعد لا أسكر الله نحرسته هو يقعنا يا هو يقعنا يا ما ضلنا حلقة ما لقى لبحة يمش يا سمين معي جرين به قف ما ويدينا أسلاد هاي أي دير في وجري أوه ايورا عندك سمعت نوف برنامجي كسمال كان فadhiya kawdhe barnaamijkii kasmaal baa fadhiya kawdhe waxaad ka jawaabtaa ciidankii miiska saraakiisha kala baxay Cabdilaahi Askar ciidankii miiska saraakiisha kala baxay waxa hogaaminayay ba waa Haragwaafi Dagaweyne Ibraahim Koodbuur iyo Lixle أيه وما سنتها أيه وتشو إبراهيم كوبور شو إبراهيم كوبور هو يلا عاش أكتر إبراهيم كوبور شو إبراهيم كوبور هو يمكن ما نقول عنا كرة عايدة بس أدم السلام إنه يسمع لنا لول سلام لول سلام أدم السلام إنه إن الدعوة الساعة نجيا أدم السلام إنه ciidankii miiska saraakiisha kala baxay Cabdilaahi Askar waxa hogaaminayay hooyan weydiinay hooyana waxa nagu tiri waa ja oo Ibraahim Koodbuur inaguna ku raacna anaguna waan ku raacnay jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay aad ma sitooy todobaan soo gaarnay su'aasha todobaad waxay noqonaysaa madaxdii Cabbaasiyiinta u talin jiray tiradoodu waxay ahayd madaxdii Cabbaasiyiinta u talin jiray tiradoodu waxay ahayd ba 36 ta 37 ja 38 ha 35 ta 37 madaxdii Cabbaasiyiinta u talin jiray tiradoodu waxay ahayd ta 37 laba ka tuurnaan naga dhamaadeen hal telefoon baa inoo hadaan qof sigo beeran bis kama qabanna madaxdii Cabbaasiyiinta u talin jiray tiradoodu waxay ahayd ta 37 jawaabta su'aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay sideed baa soo gaarnay ma soo dheeranay meel wanaagsan ballaarintii ugu weyneed ee xaramka waxa lagu sameeyay sanadkii ballaarintii ugu weyneed ee xaramka waxa lagu sameeyay sanadkii ba
1982 ta 1980 ja 1981 xa 1983 taariikh inta midna ma dal waqti ugu badnayd xaramka la balaariyo yeelin ogeydii mid ma qaraxa yad ku celin qof noo garaa markuu soo qabtana samcada inaf maanta ku weydiiyay inay qabanay ramadan tala go'an sax ay marka bismillah go'aanka gaarado xa 1982 xa 1983 ballaarintii ugu weyneyd ee xaramka waxaa lagu sameeyey sanadkii 1983 go'aankaaga u dambeeya meel xasaasiya marna maskaxda aad u tooji 1982 ballaarintii ugu weyneyd ee xaramka waxaa lagu sameeyey sanadkii 1982 go'aankaaga u dambeeya bismillah wabalo codka kor u qaad kooyga caadi bismillah ba oo ah 1982 ballaarintii ugu weyneyd ee xaramka waxaa lagu sameeyey sanadkii 1982 koodka sanad ba 1982 keen wadeegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay meelaha ka soo saartay sagaal baynu soo gaarnay gaaska ciidamada guutooyinka uu ka kooban yahay waa gaaska ciidamada guutooyinka uu ka kooban yahay waa ba 4 guuto ta 2 guuto ja 3 guuto xa 5 guuto askari bay noqonay sarreeyo gaas marka la dhaha meel soo haysta sama qof allah bari abay ba gaadhiismeenay idan garaacnaa wajhi inoo banaanta haddaynu helo ma ku ciyaar cid askari yaraysa abay ba askari abo ciidamada maasha allah howlaha gibi gaadhi ku dhaab wiil qaba laayay ta ku wiil waxbaaya hawl qarab ku jira laga yaabay garaac ma qabanaya ban hawl ciidan ku jira laga yaabaa haweenayno maskaxdu tuuj dina qaban la aad buu fiicnaa allah abtiyo iyo سمعت نفر waxaan ka oray waxaad ka jawaabtaa su'aal baan ku weydiinaya ka oray kasmaal ma soo ku roolay wiil waxa weey gaaska ciidamada guutooyinka wuxuu ka kooban yahay 4 2 3 كشوكا كشوكا وقت كنا نوصل هذا هاي لك وقايا وصار قلت لك السبعة ده ينفر abtiyo waxa weeye gaaska ciidamada guutooyinka wuxuu ka kooban yahay 4 kowdheed 4 laba 3 iyo 5 laba 3 ama 5 kee wey
waqtiguna noo socdaa kule waa kay abti hello waa kay de ما هذا بين الأمور فايدية دونة يا يسوع nagumase waqtiga nagu socda ku dhahay dad madanaysa iska daa naga dhacay waqtigii waxa weeye si waxba inaguma soo kordhinin laakiin waa dadaalisa walaa itixaad ciidankan waa miyaa abti inuu ka mid yahay inuu qalbada way gaaska ciidamadu guutooyinka uu ka kooban yahay waa abtiyaan garaacnay abtiya anagu si wanaagsan noogu sheegin baa waqtigeena gaadhay waa shan innaga markaa go-aan ka gaadhin xa oo shan gaaska ciidamadu guutooyinka uu ka kooban yahay waa laba kali ta oo laba shan waan ka nimaadna gaaska ciidamadu guutooyinka uu ka kooban yahay waa ta oo laba kuwaad ka sidasa go-aankaaga u dambeeya ta oo laba gaaska ciidamadu guutooyinka uu ka kooban yahay waa ta laba jawaabta su-aashaasi aynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay waa saddex madhaweyne aada lagu saaray وهاجاك داوديال انت هادان kaga nimaadno tartamayaasha dabcan miiska joogay ee barnaamijkan ka qayb qaadanayay magaalada Hargeysa waxaan eegi doonaa barnaamijka qaybtii aan ugu talagalnay inaan qaab online oo la hadalno maadaama oo coronavirus uu jiro sidaan tilmaanay dad fara badan ay ku sugan yihiin guryahooda barnaamijku sidii furitaanka baad ku ogeydeen guryahooda goobahooda meel kasta adduunka ay ka joogaan waxaan fursad u siin doonaa in barnaamijka Soomaaliya nagala qayb galaan goob joogayaalna ay ahaadaan waxaynu eegi doonaa barnaamijka online ka cidda noqon doonta ay ka qayb gali doonta inagoo markaas si toos ah ula xiriiri doona daawadayaasha barnaamijka Kismaha kala socda baraha bulshada iyo markaas dalka gudihiisa joogay waxa hadda khadka si toos ah ugu jira Cabdiqani Faarax Dhoollayare oo markaas ku sugan dalka Mareykanka isaga si toos ah ula xiriiri doona barnaamijka Kismaha maanta noqon doona tartamaha barnaamijka qayb gali doona assalaamu calaykum Cabdiqani وعليكم السلام ورحمة الله in walaal ku soo dhawo barnaamijka Kismaal waxaad warbixin naga siisaa aniga iyo daawadayaashaba halka aad joogto bal shaqo inaad arday tahay iyo inaad shaqo kale haysid aniga iyo daawadayaashaba sidii barnaamijka Kismaal miiska loo fadhiyay maadaama aad online tahay intaad warbixin naga siin kartaa naga sii walaal marka hore ku salaamaya waxaan joogaa Mareykanka gaar ahaan waxaan joogaa Ohio Columbus waxaan ahay arday Cabdiqani waxaad wax ka barataa dalka Mareykanka bal waxaad iga warantaa adduunkiina waa kan imika saameeyay COVID-19ku waxbarashadii iyo dadka Soomaalida ee Mareykanka wax ka bartaba xaaladoodu waa sidee wallahi inkastoo hadda xaaladdu adag tahay oo dadkii wax karantiin ay kala galgaleen oo qof kastaaba gurigiisa soo xiray haddana waxbarashadii iyo hawlihii shaqadii way socdaan kuwa online ka socda iyo kuwa loo sida caafimaadka kala dhaqaatiirta kala loo galaaday inay tagaan soo hadda hawlihii way socdaan Cabdiqani Faarax barnaamijkan Kismaal ma daawan jirtay in badan barnaamijkan sidoo kula muuqdaa marka aad aragtid su'aalaha soo baxaya iyo dadka studio jooga wallahi kulli marka daawanayo su'aalu way fududiin laakiin maanta bal waan tijaaminayaa وانا برنامج في عن أولوب يعني رنتي إنها كان لقيت وضعنا أولوب يعني مدة أنت لك بعد مريكا شوفتين كذا على غدا وحتى قلبوا في سكيت وانك مدة عياد شوفتها دوري تمسنا أنا أروح أنا حسوسنا تا سؤالو هل كان وصلك على قصة بحدونا مرايدة إنه كذا صعنا هدي عاد كذا لبى شهر كم إذا من لبى نطور الدونا وانا شو سؤال كستانا waxa weeyaan konta kun oo shilinka Soomaaliland inaad tartame ka qayb qaadanaya kamid noqotin aad ma ku soo dhaweynaa Ramadaan Kariim ma ku leeyahay su'aalaha ku bilaabi doona diyaar baad tahay diyaar bismillah su'aasha koobaad waxay ku oranaysaa geedka daraygu wuxuu ka mid yahay geedka daraygu waxa uu ka mid yahay geed ba midhoodka ta caanaha leh ja quwaaxa xa cawska dhirta sidee isku tihiin wallahi ma isku fiicnin
بعض ba'doo ah midhoodka مرادها geedka daraygu waxa uu ka mid yahay ba geed midhoodka ku adkaysanaysaa ها midho daray haddaan duuduub ku liqi jiray aad jirtay soo maa ها ba oo midhoodka aynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay labaan soo gudubnay aad baan kugu hambalyaynayaa sacabkiina qolada facebook ee nagala socotay ayaa kuu sacafinaya iyo qolada ohaayo kula joogteen su-aasha labaad waxayna odhanaysaa xajaaj bin yuusuf qofkii ugu dambeeyey ee uu dilo markii dambena uu duceeyey lahaa ilaahay dabadii cid kuguma sallido ma wuxuu ahaa saciid bin jubayr salmaan bilaal abu cubayda asxaabtii bay ka mid ahaayeen xajaaj bin yuusuf waxa uu nin iska dhib badanoo adugu dowladdii umawiyiinta ayuu xil sare ka hayd laba ka midaan kaa tuuri doonaa su-aalahaasi waxaa isku soo hadhay saciid bin jubayr iyo oo ah cubayda سعيد بن جبير يو عبيدة waxaa isku soo hadhay ba oo ah saciid bin jubayr iyo oo ah cubayda عبيدة xajaaj bin yuusuf ninkii u dambeeyey ee uu dilay ee ku duceeyey inaanu alla qof dambe ku sallidin waxa uu ahaa oo cubayda go-aankaaga u dambeeya cabdiqani waxaa isku soo hadhay laba waa saciid bin jubayr iyo cubayda عبيدة go-aankaaga u dambeeya al fursad baan ku siinayaa labadaas ku soo hadhay go-aanka gaadh cabdiqani waxaad ku soo hadhay عبيدة iyo سعيد bin jubayr جبير اوكي عبيدة go-aankaaga u dambeeya meel xasaasiyaynu marnaa inaan laba ka tuurno waan gaadhnay iyar baa inoo harsan go-aankaaga u dambeeya سعيد saciid ابن جبير bin jubayr saciid bin jubayr ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay waan siganay cabdiqani waxaan soo gaadhnay taa qoladii kamaramaanaduna sacabka ku garaayo od fiicantay waxaan soo gaadhnay saddex su-aasha saddexaad waxaynu odhanaysaa dagaalkii beder asxaabigii ugu yaraa ee ku shahiiday waxa uu ahaa dagaalkii beder asxaabigii ugu yaraa ee ku shahiiday waxa uu ahaa ba cabdulcasiis cabdulaahi ta cali binu abi daalib ja anis binu malik xa cumar binu abi waqaas cabdiqani ku bilaabantay asxaabigii ugu da-da yaraa عبد العزيز عبد الله علي بن طالب انس بن مالك عمر بن الخطاب hal maro inaan laba ka tuurnaabaa inoo harsan تعال taadoo ah cali binu abi daalib dagaalkii beder waxaa dagaalkii ugu horreeyey ay muslimiintu gaalada la gasho هاي لبا يقطو calina muddo dheer buu sii noolaa soo maa laba ka midaan kaa tuuri doonaa su-aalaha waxaa isku soo hadhay cali binu abi daalib iyo cumar binu abi waqaas عمر بن عبد الخاص xa oo ah cumar binu abi waqaas dagaalkii beder asxaabigii ugu da-da yaraa ee ku shahiiday waxa uu ahaa go-aankaaga u dambeeya حال xaadoo ah cumar binu abi waqaas jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay cabdiqani afar baan soo gaadhnay
su-aasha afaraad waxayna odhanaysaa baankii ugu horreeyey ee dhiig lagu kaydiyo waxaa la furay sanadkii baankii ugu horreeyey ee dhiig lagu kaydiyo waxaa la furay sanadkii ba 1940 ta 1940 ja 1941 xa 1943 baankii ugu horeeyay dhiig lagu kaydiyo dhiig ba waa 1942 baankii ugu horreeyey ee dhiig lagu kaydiyo waxaa la furay waxaa isku soo hadhay 1942 1940 1941 taado ah 1940 baankii ugu horreeyey ee dhiig waxaa la furay lagu kaydiyo 1940 jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay cabdiqani shan baan soo gaarnay halkan waa halkaan usoo soconnay maskaxda aada u tuuji su-aasha shanaad waxay ku odhanaysaa su-aashii waa tii u dambeysay waxa weeyaan su-aashii 250,000 oo shilinka Somaliland waa su-aashii shanaad waxay ku odhanaysaa aad baan kugu hambalyeynaa in halka soo gaadho aad baan kugu hambalyeynaa su-aasha shanaadna waxay ku odhanaysaa su-aasha shanaad cabdiqani waxayna odhanaysaa su-aasha shanaad waxayna odhanaysaa dhaan dabagaale waxa loo yaqaanaa ba biyo maqashu caabto ta balli buuxa ja wax aan la gaadhin xa midna dhaan dabagaale horta hore ma maqashay waa ja'do ah wax aan la gaadhin dhaan dabagaale waxa loo yaqaanaa ja wax aan la gaadhin meel xasaasiyanu marana waa su-aashii shanaad waa 250,000 oo shilinka Somaliland maskaxda aada u tuuji go-aankaaga u dambeeya jada ku adkaysanaysaa dhaan dabagaale waxa loo yaqaanaa ja wax aan la gaadhin qalad ama sax ama qalad dhaan dabagaale waxaa loo yaqaanaa codka kor qaacad qani go-aankaaga u dambeeya waa ja waxaan la gaadhin ja oo waxaan la gaadhina dhaan dabagaale waxaa loo yaqaanaa ja wax aan la gaadhin jawaabta su-aashaasi aynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay aad iyo aad baan kugu hambalyeynaa cabdiqani aad baan kugu hambalyeynayaa hambalyo aniga technicalkuna waa naga kusoo cabinaynaa aad baan kugu hambalyeynaynaa adigoo ardaya dalka Mareykanka wax ka barta barnaamijka Kasmaal maanta si toos ugu jiray ugu dambeyntii maxaad leedahay aniga daawadayaashaba dhammaan aad baan ku salaamaya adiga daawadayaasha dhammaantiin aad baa mahadsantahay tabaya hooyaday oo iyaduna joogta magaalada Burco aad baan u salaamayna waynaynayna daawanaysa Burco inaga daawanaysa waa suuragal aad baan u salaamayna waxaan salaamayaa kale walaaladay oo iyaduna Mareykanka kula sugan iyo habaryarahay dhammaan family-ga dhammaan salaamaya aad baan anaguna ku salaamayna cabdiqani lacag 250,000 oo shilinka Somaliland ayaan ku guuleysanay oo aan hambalyo ku leenahay lacagtaadaasi online baa lagu soo diri daabshiil Mareykanka la soo dhigi ama online ba idahabo lagu soo diri lacagta maxaan ka yeelaa aad ku guuleysatay adigaas kale cabdisaaq waa si wanaagsan lacagtaas adiga ayaa mas'uul kaaga dhigayaa waxaana rabaa inaad sadaqo ugu bixisid oo dadka debijiifta ee Hargeysa degan ee masaakiinta inaad sadaqo ahaan ay ugu siisid aad baan u mahadsan tahay lacagtaas waan qaadi doonaa sidaa tiri sadaqo ugu bixiya aad baan kaga mahadcelinaynaa haddii ka fursan weydana afuri walaalkaa baa jiro oo qaybo fara badan oo khayr iyo bisha Ramadaan dad badan afurinaya lacagta waxaynu u gudbin doonaa jimciyadaha siinta badan afurka ka qayb qaadanaya laga yaabaa in dad fara badan afuriso dadka faraha badan afurinayso ajarkoodana waxaan ku rajaynaynaa inuu adiga waalidkaaba Ilaahay khayr ka siiyo amiin waa mahadsantahay aad baa mahadsan tahay aad baan kaga mahadcelinaynaa waqtiga qaaliga aad baan ku soo salaamayna aad iyo aad baa mahadsan tahay
داوديال طبعا عبد الغني فارح دول يروكو جولستي ترتن كاسي أدبر رنتي يقوم هالعلنية